Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan asxaabteena youtube-ka channelka waxaan baarka 252 barka wanaagsan waxaad kusoo dhawaataan muuqaal cusub aan kaga hadli doono kooxda kubadda cagta Barcelona kulan ka tirsan horyaalka La Liga ayay ciyaari doontaa soo laabasho muddooyin oo laga maqnaa horyaalka Nasiino iyo faafitaanka COVID-19 horyaalka La Liga oo soo laabtay kooxda kubadda cagta Barcelona caawa ciyaari doontaa kulan ka tirsan horyaalka La Liga waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta Real Mallorca shantii kulan u dambeysay ee wada ciyaareen Barcelona iyo Real Mallorca shantii kulan u dambeysay waxaa badishay kooxda kubadda cagta Barcelona kulanka caawa Barca iyo Real Mallorca waxaa shaki laga gelinayaa ciyaartooyda Barca seegi kara waa Luis Suarez iyo Jordi Alba iyo Clement-Lenglet oo caawa kulanka roose ugu seegi kara tababare Kikian Setien ayaa laga yaabaa kulanka caawa shax ka duwan shaxii hore inuu kasoo galo kooxda kubadda cagta Barcelona marka la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta Real Mallorca kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa hadda ku jirto kaalinta koowaad waxay leedahay 58 dhibcood halka kooxda caawa u bixi doonto Real Mallorca ee ku jirto kaalinta 18aad waxay leedahay 25 dhibcood ogeysiiska kulanka caawa Barcelona vs Real Mallorca garoonka ee leedahay kooxda kubadda cagta Real Mallorca lagu ciyaari doonaa Bristol ciyaarta caawa waxaa la daawan doonaa 5 saac oo habeenimo xilliga geeska Afrika shaxda macquulka ah laga yaabo inay kusoo gasho kooxda kubadda cagta Barcelona waa Stegen waa Roberto waa BK Umtiti Julian Firpo qadka dhexe waa Busquets Rakitic De Jong weerarka waa Griezmann Messi Ansu Fati soo saadala kulanka caawa xiisaha badan Barcelona iyo Real Mallorca hadda channelka Barca 252 ku cusub taas subscribe saaro intaan muuqaalka xigta isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.